horumarinta kalluumaysiga mudane xasan gaafadhi iyo sidoo kale gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Sharmaaka Axmed Maxamed Geela Dacar oo ay helinayaan agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo gudoomiye ku-xigeenka hay'adda shaqaalaha dawladda. Shirkan sharciyeed ayaa waxa uu daaranaa tirakoobka iyo tayeynta lagu sameynayo dhakhaatiirta baratay cilmiga xoolaha ee ku dhaqan degmooyinka iyo weliba magaalooyinka waaweyn ee waddanka. Sharmaaka Axmed Maxamed Geela Dacar gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ugu horreyn halkaasi ka hadlay ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay tirinta dhakhaatiirtani. saaka waxa bilaami doona hawlqabad qaran oo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga iyo hay'adda shaqaalaha dawladdu ay bilaabi doonaan hawshaas oo ah kormeerka iyo diiwaangelinta saraakiisha xanaanada xoolaha ee ku sugan guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland si loo ogaado tiradooda aqoontooda isla markaana kayd rasmi ah loogu sameeyo kaydkaas waxa anfici doonaa in mar walba marka fursad shaqaaleyn la helo in tira sugan oo sidoo kale way aragsanaayeen kulba in loo shaqaaleeyo horey waxa uu soo dhamaaday diiwaangelintii shaqaalaha rasmiga ah ee payroll-ka ku jira imikana waxa socota diiwaangelinta shaqaalaha iyaguna shaqeeya laakiin aan ku jirin diiwaanka mushaar bixinta qaybahooga gacanta hawlaha gaarka ku haya waa guul ahaan hawl guulo ah runtii shaqaalihi kala duwanaya awal gacanta hawsha ku haya iyagoon xogtooda si rasmi ah loo hayn in maanta gobol walba iyo geed walba loogu tagay isla markaana xogtooda sugan loo soo diiwaangelin doono arrintaas waxay keenaysaa in marba tira kamid ah ee la shaqaaleeyo oo tira kamid ah ka diiwaanka mushaar bixinta qaranka lagu daro inta kalena ay noqoto in niyad sami ku sugta oo og in xogtoodii wasaaradda iyo hay'adda shaqaaluhuba ay u dhigantay wasaaradda xanaanada xoolaha oo runtii hawshaasi isku xil saartay dadaal badan ee wasaaradda hay'adda shaqaalaha ka wada galeen sidii markii ugu horeysay diiwaankaasi kaydka ugu sameysmi lahaa waa bishaaro wanaagsan iyo bilowga hawsha dhamaantiin u diyaar garoobay inaad diiwaankaasi la idin soo sameeyo. Waxa isaguna halkaasi ka hadlay mudane xasan gaafadhi wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland oo sheegay muhiimadda ay daaran tahay in la tirakoobo dhakhaatiirta baratay cilmiga xoolaha waxaana hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ugu mahadceliyay sida fiican ay wada hawshani. waxaanu diraynaa koox ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga iyo hay'adda shaqaalaha kuwaas oo kormeer ugu baxaya dalka oo dhan goboladiisa si ay u soo diiwaan geliyaan dadkii ka qalin jabiyay jaamacadihii iyo iskuuladii xanaanada xoolaha oo noqon doona insha allahu tacaala kayd iyo liisto iyo data dhaba oo ay wada xaqiijiyaan hay'adda shaqaalaha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysigu wasaaradda tan dadka aqoonteeda soo barta meel kale ay u shaqo tagaan ma jirto tanunbaa u ah guri u ah tanaa hooy u ah tanaa shaqo u ah annana waa dadaalaynaa waana kala badan yihiin waxa la hayo iyo dadka dul saaran way kala badan yihiin cid walba waxaanu leenahay wixii ilaahay maanta calaf ugu daro hawshaa loo baxayna ha calfadaan inta kalena ha u haniyeyso aloolsamina ha ku sugaan sidaasaanu leenahay cid walbana ha u diyaar garowdo. Alqamacir telefishinka Badda Cas Hargeysa.